qaar ka mid ah qurbo-joogta reer Somaliland ee ku nool dalkani Jarmalka ayaa xiriir ay la soo sameeyeen telefishinka caalamiga ee Home Cable TV xarunta uu ku leeyahay Jarmalka. Waxaa tawooyin wax ku ool ay u soo jeediyeen xukuumadda xisbiga kulmiye uu hogaamiyo Axmed Siilaanyo iyo waliba guud ahaan salaadiinta reer Somaliland waxaana hadalladoodii ka mid ahaa. marka hore waxaan u maadnaqayaa TV-ga Home Cable TV. marka labaad waxaan doonayaa inaan ka hadlo arrinka marka mudaharaadyadu dhacaan ee wadankeena mudaharaadyo noocan oo kale ka dhacaan waxaan u baahanay in ciidamo u tababaran oo waxaan wax ka qaban karaya si aanay dadkuna ugu dhiman oo maxaa la dhahaayay dadku aanay ugu dhiman oo aanay ciidankan waxba u soo gaadhin waxaan oran lahaa dawladda sidii budgetka dawladda wax loogu dari lahaa oo sidii ciidamo tababaran oo aan cidna laynin cidna waxba gaadhsiin iyaguna aan waxba soo marka hore waxaan u mahadnaqayaa telefishinka caalamiga Home Cable TV iyo wariye Mustafa Xaaji Aadan waxaan jeclahay inaan wax ka idhaahdo marxaladda maanta wadanku marayo Somaliland oo ay ugu horeyso qabyaaladu waxaan leeyahay shacab weynaha qurba jooga iyo salaadiinta qabyaalada dajiya waxaan leeyahay maanta halka ay marayso 10 sanadood ay ka hor baynu marinay waxaan leeyahay gaar ahaan salaadiinta odayaasha inta TV-yada soo fariistaan oranaya hadii aanu nahay waxaan leeyahay dajiya maanta maaha suldaan maanta maaha waqtigii la kicin jiray wax waa waqtigii la dajin jiray midda kale kurs cimaamadaada adigu hayso iyo suldaannimadaada haddaad reer ku koobto cid kale wax ka dhageysanaysa ma jirto qurba jooga TV website-ada wax ku soo qoran waxaan leeyahay marxaladda maanta wadanku joogo dajiya baan leeyahay shacab weynaha waxaan oranayaa oo aan bulshada oranayaa wadanka idinkaas kale siyaasi ma laha suldaan ma laha qurba joog ma laha Mustafa Xaaji Aadan Haruun telefishinka caalamiga Home Cable TV Jarmalka.